waxa uu ahaa gacan ku dhiigle dad qalaan nixin He was a monster. dilaa aan jixin A serial killer. dhiigi cab adduunka oo dhan yaqaan A charming face. ka soo dilay boqolaal qof With no pity and no soul. faraxumeeyayna boqolaal The face of true evil. maanta waxa aynu kaga hadli doonaa xalqadeennan xogdoon gacan ku dhiiglihii ugu caansanaa dalka Mareykanka ee Theodore Robert Bundy. 24 November 1946 waxa ku dhashay magaalada Burlington ee gobolka Farrington ee Mareykanka wiil yar oo magaciisu yahay Theodore waxaana dhalay hooyo single mother ah oo lagu magacaabo Louise. Theodore ama Ted waxa uu yaraantiisii ahaa wiil yar oo xariif caqli badan ah kaasoo ka soo jeeday qoysaska caadi ah kaasoo la dhashay 4 carruur ah. bilowgii carruurnimadiisa waxa uu ku soo koray guriga awowga hooyadii dhalay oo ay ku wada noolaayeen qoyskiisu. sida la sheegayna awowgii ma ahayn mid dabacsan balse cagsiga waxa uu ahaa cunsuri ku adag dhammaan xubnaha qoyskiisa kaas oo sida la sheegay gacan fududaa oo marka uu kaco kabaha la dulmari jiray ciddii uu arko xitaa xaaskiisa ama gabadhiisa. iyada oo ay sidaa tahay Ted uu jeclaa awowgii uuna ku dayan jiray isagoo la sheegay in carruurnimadiisiisba uu jeclaa dagaalka iyo dilka ayna ka soo muuqdeen calaamado cunfi iyo adayg yaraantiisii. kolka dabeecad ahaan laga hadlayo wiilka yar waxa uu ahaa maskiin aamusan oo afkaaban oo ka haybsoocan dhalinta faciisa ah laakiin marka lagu kaco wax qasa sida awowgii hooyo. dabeecadiisii caynkaas ahayd buu ku koray kuna qaangaadhay. markii uu galay college-kana waxba iskamay bedelin dad iska haybsoociisii iyo la socosho la'aantiisii. waxaase la sheegaa dhalinyaronimadiisii waxa farxad u ahayd inuu iibsaday gaadhi kaasoo noqday gaadhigii ugu horreeyey oo noociisu ahaa Volkswagen Beetle oo ahaa 1 litir iyo bar leh xawaarihiisu gaadhayo 129 kilomitir saacadiiba culayskiisuna ahaa 260 kilogram lahaana qaab dhismeed xoodan iyo 2 daaqadood laguna naanaysi jiray xaar walwaal amaba doolsha naf Soomaali kaasoo banisiiyay xorriyad iyo madax bannaani meesha uu doono ku aadi karo isaga oo noqday doob kala baxay oo isku tuntay xorna u ah magaalada kaasoo sitay markaa digrii cilmi nafsi ah. sidoo kalena dhanka kale wuxuu ka waday barashada qaanuunka ama sharciga walow la sheegay inaanu sharciga ixtiraami jirin ilaa yaraantiisii sababtoo ah in xatooyada iyo tuuganimada uu ku bilaabay yaraan. kolkii uu qaangaadhayna cunfigu waa ku sii batay maalinba maalinka ka dambeeya. sida la sheegayna sanadkii 1974 bisha Febraayo waxa uu u dhacay oo jabsaday aqal arday isaga oo afduubtay kadibna dilay dhibanihii koowaad oo ahayd gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Linda. kadib dilkiisii ugu horreeyay markii uu geystay waxa la sheegay isla sanadka inay korokac ku yimaadeen dilalka iyo qarsoonka haween fara badan oo la waayay si joogto ah oo la sheegay in 8 dumar ah la afduubtay isla sanadkaas taasoo cabsi gelisay haweenkii Washington booliskiina ku noqotay masiibo ay xal u waayeen taasoo ay sabab u noqotay inaanu Ted ka tagi jirin haba yaraatee wax cadayna sidoo kalena uu si fiican u qorsheyn jiray camalkiisa qariban inta aanu geysan. sida la sheegayna inta badan waxa uu dili jiray haween aan da'doodu sida u weynayn. Lindina waxay noqotay dhibanihiisii koowaad isaga oo la sheego inuu ku degi jiray haweenka uu dilo inay caawiyaan isagoo u sheegan jiray inuu dhaawacan yahay ama kala dhantaalan yahay oo naafo yahay. marka ay u dirnaxaanna waxa uu saari jiray gaadhigiisii yaraa isagoo markaa afduuban jiray kadibna suuxin jiray. lana soco oo daawada may jirin xilliga baaritaanada faraha ama DNA-da taasoo maanta fudaydisa in si fudud loo soo qabto gacan ku dhiiglaha dhib geysta iyo isaga oo gobollo kala duwan u safri jiray si uu u geysto weeraradiisa. Bundy's crimes shocked Florida and the nation back then and to this day. Carol oo ahayd dhibanihii xigay ayaa ahayd gabadh dhalinyaro ah da'deeduna tahay 18 jir waxaana la sheegaa in goorfiid ah iyada oo ka adeeganaysa dukaan uu soo abaaray nin aanay garanahayn oo darees ciidan xidhan isaga
isagoo u sheegay in la yiraahdo Russell una sheegay in gaarigeygii banaanka yaalay ay tuugi isku dayday inay tabsadaan. Talow iyo u sheegay gaarigeyga mooy waxa uu intaa ugu daray in mari aynu soo hubinno wixii ku saarnaa in laga xaday iyo in kale. Cajiib iyada oo Carol markaa raacday una raacday dhankii gaarigeyga oo yaalay banaanka dukaanka. Waxa ay Carol aragtay nasiib wanaag inaan waxba laga xadin. Intaa kadib waxa uu sheegay inay raacdo si ay dacwad saldhigga uga soo gudbiyaan tuuga gaariga xaday. Waa ay yaabtay Carol waxayna istiri alla dirkan muxuu ahaa, balse waxa uu tusay cadayntii ciidanka si ay u raacdo. Kolkii ay gaarigiisa aragtayna ileen maba aha gaari ciidan waaba tuqaantii amaba xaarwalwaalkii yaraa. Waxa ayna istiri mala waa dhar cad isqarinaya, wayse iska raacday kolkii ay aragtay cadaynta ciidan uu watay. Kolkii ay waxoogaa socdeen ay hormarayaan dugsi hoose dhexe ayuunbuu hal mar gaarigii istaajiyey, deedna gacmihii ka xidhay si degdeg ah, kadibna qori ku qabtay iyadii oo qaylisay cabsina suuxi gaadhay. Waxa aysan nasiib wanaag aragtay in katiinadu aanay caadi ugu xidhnayn oo ay dabacsan tahay, iyada oo markiiba iska furtay daaqadii gaarigana iska tuurtay iskuna tuurtay wadadii. Intaa kadib gacanku dhiiglihii Bani ayaa baacsaday ama eryaday isaga oo la tiigsaday bir ama cawjadu sitay, isaga oo ku dhuftay 2 goor iyana ay isaga dhigtay gacmaha. Nasiib wanaag waxa ay sheeda ka aragtay gaari wadada soo socda, kadibna waa ay ku carartay gudihii baana u gashay gaarigii, toos baana u abaartay saldhiggii ciidan ee ugu dhowaa. Waxa ayna ciidankii uga warrantay wixii ku dhacay iyo ninkii dharka ciidanka xidhnaa ee dili gaadhay iyo gaarigii yaraa ee uu watay. 9 bilood kadib dhacdadii Carol ku dhacday 16 Agosto, askari ka tirsan ciidanka isla gobolka oo ilaalada ku jiray habeenka oo markaa shiftigiisa dhamaystay ayaa goor saqbara waxa soo agmaray gaari ay indhuhu u dansan yihiin oo goortaa dambe guuraynaya. Waa uu la yaabay askarigii oo waxa uu markiiba dareemay in gaarigani xaafadan aanu deganayn, isaga oo markiiba daba galay, balse waxa uu daba socdoba gaarigii waa istaagay waxaana la dhigay guri ay jaar ahaayeen guriga askarigan. Cajiib balse askarigii waxa uu xasuustay in reerka jaarkiisu ay muddo ka maqnaayeen gurigooga, halkaas oo ay aqalka hurdeen 2 gabdhood oo ay dhaleen hooyadii iyo aabihii ka maqnaa reerku. 2 gabdhood oo dhalinyaro ahaa, da'dooduna kala ahayd 17 jir iyo 19 jir. Markaas buu askarigii indhihii gaariga daaray si uu u arko liisanka gaariga, balse gaarigii ayaa hal mar dhaqaaqay markii uu iftiinka dareemay. Askarigiina waa uu eryaday oo baacsaday isaga oo ay ka go'an tahay inuu gaariga qabto. Wuxuuse hal mar istaagay gaarigii meel kaalin shidaal ahayd. Askarigiina waxa uu sugay muddo yar, kadibna waxa ka soo degay nin cabsan xashiish mise waaba Ted iyo doorshaankiisii yaraa. Gacmaha ayuu kor u taagay kolkii uu askarigu xabad ku qabtay, wuxuuna u sheegay inuu yahay arday qaanuunka barta oo lunsan oo rabay meel uu habeenka gaariga dhigto si uu dhex seexdo. Askarigiina waa uu ka shakiyey, waxa uuna u soo dhaqaaqay dhankiisa si uu gaarigiisa u hubiyo una baaro. Wuxuuse arkay kursiga darawalka xigaay inaanu gaariga kuba oolin, waxaana saaran meeshiisii bac weyn iyo alaabo uu la yaabay oo kala ah cawjad ama bir, toosh, galafisyo, maaski, xadhig iyo weliba baanad bir afdhuubana. Sidoo kale waxa uu ku arkay bac qashin ku jiro iyo sidoo kale halka dambe oo ay saarnayd katiinad. Isla markiiba askarigii waxa uu sheegay Ted hadalkan: "Waryaa waad xidhan tahay oo tuug baad u eg tahay, qalabkoogina waad wadataa, nadalyahaw gacmaha keen gaarigana soo." Intaa kadib saldhiggii ayuu geeyey isaga oo u hoyday habeenkii halkaa. Nasiib xumase wax caddayn ah laguma helin gacanku dhiiglihii oo aan ka ahayn qalabka uu watay ee wax lagu xado. Wayna sii daayeen isaga oo ogaa askarigu inuu rabay inuu u dhaco jaarkiisa, doonayeyna inuu dilo 2 haween ahaa. Nasiib xumase may ogeyn inuu dhiigi cab dambiile ah yahay oo ay ahayd inay mar horeba xidhaan. Maalin kadib askarigii soo xidhay habeenka waxa uu sheekadii la wadaagay walaalkiis oo isna ahaa dambi baadhe ka shaqeeya dilalka. Walaalkiina wuxuu la sii wadaagay dambi baadhayaashii ay ka wada shaqayn jireen saldhigga, iyada oo ay hal mar dambi baadhayaashii aqoonsadeen gaarigii uu sifeeyey askarigu oo ay muddo sanad ka hor gabadh dhibana ahayd u sheegtay ciidanka, kadib markii ay saaxiibkeed oo ay wada socdeen ay ku eedaysay shaar madoobeyn iyo shaki xooggan oo ay ku aragtay inuu goor dambe soo hoydo iyo in guriga ay degan yihiin ay ku aragtay qalabka wax lagu xado ama afduubto. Kadib markii ay ciidanka
ciidanka la wadaagtay waxa ay siisay sidoo kale nooca gaadhigiisa iyo qaabka uu u egyahay oo ay farshaxan ka sameeyeen askartu lana dhigay saldhigga 10 dumar ah ayaa la waayay ninkanna waa laga shakisan yahay dambi baarayaashiina waxa uu cadaatay inay fari ku godan tahay Bunny dhibana Carol ayaa looga yeeray saldhigga oo ahayd gabadhii ka badbaaday dil si ay u aqoonsato dambiilihii dhaawacay ee isku dayay inuu dilo iyadoo markii ay saldhigga timi ka dhax socday 8 nin oo kale oo uu ku dhex jiray gacan ku dhiiglihii dili gaadhay sidaana waxa lagu xukumay Ted Bunny 15 sano oo xadhiga oo ah isku day afduub bil kadib markii la soo xiray dambi baaridii waa ay ku socotay waxa ayna heleen dambi baarayaashii kiis kale oo dil ah oo uu galay oo ahayd gabadh 23 jir ah mar kale ayaana maxkamad la saaray Bunny oo lagu xukumay dil uu geystay isagoo istifaacay ilaa sharciga ayuu bartay wuxuuna isku noqday lawyer oo xorriyadaas baa la siiyay iyadoo maxkamadda la saarayna maalmaha kamid ah intii lagu jiray fasaxa waxa uu galay library ama madxafkii maktabadda si uu wax ugu qoro waraaq uu daabacay halkaas oo ilaaliyihii isaga ilaalinayay uu banaanka u baxay si uu u cabo xabad sigaar ah isla markii uu arkay in aanay cidi ilaalinahayn dabaqii labaad ayuu iska soo tuuray ee maxkamadda nasiib xumo se waxba ma noqon shaydaanku isagoo markiiba kacay oo cararay taa kadib waxa uu toos u galay buurihii ku hareereysnaa magaalada ileen waaba qorshe uu ka soo baaraandegay kaas oo uu ka shaqaynayay intii ku jiray xabsiga una tababartay in muddo ah isagoo oo xirtay timaha madaxa iyo garhka si aan loo garan haddii uu baxsado kolkii uu iska tuuray dabaqa maxkamaddana waxa arkaysay gabadh markiiba ku wargelisay ilaaladii maxkamadda iyagoo isbaarooyin dhigay wadooyinkii magaalada buurihiina u diray ayada waxbaadha ee urisa sidoo kalena saxaafadii waxa ay qaadaa dhigtay warkiisii 150 ciidan ah baana loo xil saaray baadhidiisa waxa uu dhuuntaba isagoo oo kaliya wata khariirad yar waxa uuna helay guri yar oo u dhawaa buurihii halkaas oo uu habeenkii seexday uuna ka helay cunno mariyo iyo weliba qori hub ah kadib 2 cisho baxsadkiisii maalinkii saddexaad oo la isugu yimi baadidoonkiisii muddo markii uu kaynta dhex socday waxa helay roob weyn oo duufaan wata kaas oo khalkhaliyay lumiyeyna waxa uu dib ugu laabtay gurigii yaraa ee uu habeenkii u hoyday waxa uuna arkay raadka ciidankii ku daba jiray isaga oo ay lugtu bararsan tahay haba yaraatee aan haysaninna waxa uu cuno maalinkii shanaadna dhex wareegaya buurihii dib uuna magaaladii ugu soo laabtay oo dib baaridoon u galay inuu xado gaadhay si uu uga baxo magaalada mise waxa uu helay gaadhi gaboobay oo Cadillac ah oo kala jiidan waana maalinkii 6aad ee baxsashadiisa sidaas buuna ku kacaystay gaadhigii in muddo ahna markii uu gaadhigii watay goor dambe oo habeen ah ayaa ay 2 askari arkeen gaadhi kala jiidan oo laamida marba dhinac u jaraya iyagoo oo muuday darawal cabsan mise waaba Ted Bunny oo duruufi ka muuqato oo quraanjo ka yaraaday ay ciidankii aqoonsadeen wayna xidheen xabsigii baana u taxaabeen maalmo kadibna waxa la soo istaajiyay maxkamaddii iyadoo dilkii uu ka eedeysnaa uu u raacay baxsi oo ahaa dambi kale kadib markii xabsiga loo taxaabay mar kale waxa uu qorsheeyay sidii uu ku baxsan lahaa mar labaad and he escaped clean in an unknown direction iyadoo maalmaha kamida loo keenay cunno markii uu askarigii cunnada u keenayna ka baxay waxa uu fantay oo uu koray isagoo aan cunnadii taaban siligii xabsiga isagoo oo isticmaalay mishaar dhowr cisho ka hor uu helay darooshadayna meeshii nalka ama laambada leedhku ku jirtay meeshaas oo ahayd meel aad u yar balse waxa uu degay qorshe ah inaanu haba yaraatee cunin wax cunno ah si uu miisaankiisa u dhimo ayna ugu fududaato inuu koro galana huluusha kadib markii uu galay meeshiina waxa uu raacay daloolkii dhismaha xabsiga oo ugu dambayn uu helay qol u dhow xabsiga oo ay ciidanku deganaayeen oo xabsiga la jaar ahaa markii uu gaadhay qolkii waxa uu maqlay codka mid ka mid ah xaasaskii ilaalada oo cashaynaysa muddo yar kadib waxa ay ka baxeen lamaanihii qolkii isna waa uu soo dhaadhacay oo waxa uu ka labistay gurigii isaga oo dharkii xabsigana iska saaray si toos ah buu nooga baxsaday mar kale xabsigii iyadoo aanay cidna dareemin inuu baxsaday 17 saacadood oo xidhiidh waa saqbadh la kala seexday waana 15 cisho kadib maalinkii uu baxsaday Nita oo ka timi haasaawo goor dambe ayaa soo abaartay gurigii ay deganayd markii ay isku dadaynayeen ilbaabka furtana waxa ay aragtay in ilbaabkuba uu furan yahay iyadoo yaaban ayay aragtay inuu leelku daaran yahay ilbiriqsiye kadib
waxa ay maqashay dhawaaq xoogan kaas oo ay raacday jabad orod ama carar mise waaba nin cararaya oo gacanta ku wata bir isaga oo jiiray iyadii ilbaabkana ka baxay wayna naxday oo waxa ay kicisay asxaabteedii dhismaha kula jiray waxa ayna xaqiiqsatay in meesha Ted Bundy uu ku jiray oo 4 dumar ah oo dhismaha la deganaa wax la yeelay kuwaasoo 2 ka mid ah ay dhiman doonaan 2 ka mid ahna ay badbaadi doonaan buucyadii xigay dhacdadaas waxa uu Bundy u waday hawlihiisii afduub iyo dil nasiib wanaag kuma guuleysan inuu geysto wax dila ilaa maalin dambe uu helay gabadh yar oo 12 jir ah oo lagu magacaabo Kim iyadoo u socotay iskuul roob dhex qaadaysa ayuu u yeeray nasiib xumo waa ay ajiibtay waayna u timi isaga oo saacada kadib faraxumeeyay dilayna gabadhii 12 jirka ahayd 6 cisho kadib dhacdada gooray saacadu ahayd 1:00 habeenimo waxa askari ku jira habeenka ilaalada soo agmaray gaari yar oo midabkiisu liimi yahay ama orange kaas oo ay indhuhu dansan yihiin guureynayana goor dambe askarigiina wuu ka shakiyay isaga oo baacsaday eriyadayna gaadhigii yaraa kadib markii uu istaagay waxa gaadhigii ka soo degay gacan ku dhiig la Bundy askarigiina markii uu xidhis yidhi waxa uu isku dayay inuu la dagaalamo taasi oo keentay inuu xabad ku rido askarigii markii uu isku dayay askariga inuu ka xoogo xabadda wuxuuna isku dayay inuu cararo askarigiina waa uu daba cararay isaga oo xabad kale ku riday kadib markii ay xabaddu dhacday waxa uu isku tuuray Bundy dhulkii isaga oo iska dhigay inay xabaddu ku dhacday balse aanay ku dhicin isku dayay inuu mar kale askariga khiyaameeyo oo uu ka xoogo xabadda nasiib wanaag kuma guuleysan oo askarigii ayaa ka il horeeyay madaxa ayuuna kaga dhuftay xabaddii isaga oo aan wax yeelin sidii buuna ku xidhay kuna geeyay xabsigii Bundy was to go on trial Monday for the murder of a woman near Aspen. Over the weekend, he escaped from his jail cell. muddo kadib ayaa maxkamadda la soo taagay mar afraad iyadoo lagu xukumay dilka gabadhii yareed ee 12 jirka ahayd oo cadho badan ku dhalisay bulshadii bil kadibna July 23 waxaa la soo taagay maxkamadda iyadoo oo lagu xukumay xukun dil ah 4 cisho ka horna intii aan dilka lagu fulin waxa uu qirtay inuu dilay 36 dumar ah muddo kadib waxa la ogaaday inay kaba badan yihiin haweenka uu dilay 100 korna u dhaafayaan sida la sheegay dilka waxa uu ku bilaabay 14 jir wuxuuna ahaa arxanlaawe dhiig yacaba oo gacan ku dhiigla ah oo uu shaydaanku dhaamo marka la eega afcaashiisa xayawaannimada ah ee aan afka la soo marin karin xukunkiisina waxa uu noqday mid dunida oo dhan gaadhay oo caan ka noqday gudaha Mareykanka kaas oo noqday xukunkii ugu horeeyay ee si layfa looga tabiyo saxaafadda Mareykanka taasi oo sababtay caannimada kiiskiisa iyo maxkamadiisa oo socotay muddo 10 sano ah taas oo u dhaxeeyay maxkamadda iyo xabsiga muddada wuxuuna noqday gacan ku dhiiglihii sida fududii jiray haweenku inuu muddo 10 sano ah naftiisa isku dayay inuu badbaadiyo subax salaasa ah ayaana kursiga dilka la saaray waxaana la sheegay inay haweenay korontada ku shiday gabagabaysana noloshiisa qaabka daran halkaas bayna ku soo gabagabowday noloshii qaabka darnayd ee Ted Bundy oo ku dhawaad 20 sano cabsi ku hayay shacabka California haddaad ka heshay taxanahan fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kana mid noqo xirta xogdoon oo la soco muuqaal cusub maalin kasta oo Jimcaad waxayna ku soo afmeeri doonaa muuqaalkeen hadalku ku yiri qaadigii dilka ku xukumay oo ahaa falkaagu waxa uu ahaa mid xad dhaaf oo qariban ahaana mid shar badan oo foolxun oo muujinaya inaad wax qiimo ah siin nolosha aadanaha and that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Take care of yourself, young man.